Asalaamu calaykum kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijyadii aan idiin soo gudbin jiray ee ku saabsanaa tarbiyadda iyo barbaarinta wanaagsan ee carruurta, dhiirigelinta waalidiinta iyo weliba wararka iyo qisooyinka ku saabsan arrimaha bulshada iyo carruurta. Markan waxa aan idiin hayaa barnaamij ku saabsan dhinacii arrimaha bulshada. Muuqaalkaasi waxa uu noqonayaa 6 calaamadood oo la isku raacsan yahay in lagu garan karo dadka caqliga badan. Haddaba barnaamijkan dhamayso si aad isku ogaato in aad ka mid tahay dadka caqliga badan. Qodobka koowaad waxa uu noqonayaa dadka caqliga badani fikirkooda ayay si cad u sheegaan iyaga oo aan haba yaraatee ku dhaawacaynin qof kale. Tusaale ahaan, marka ay fikirkooda sheegayaan kalama baqaan waxa ay fikirkooda ama maskaxdooda ku hayaan cidna, si cad ayay u sheegaan. Hase ahaatee waxay u dhigaan si hadalkooda si ay ka taxadirayaan in ay dadka kale dhaawac u geystaan qalbiyadooda. Dadka caqliga badan waxa lagu gartaa in ay yihiin kuwo markasta wax indha-indheeya iyaga oo urursanaya hadba xog cusub oo ay u arkayaan inay anfacayso. Dadka caqliga badan waxa lagu yaqaanaa waxa ay gaadhaan go'aamada noloshooda, waxa aanay noloshooda iyo naftooda u hoggaamiyaan wadada ay u arkaan iyagu in ay dani ugu jirto, isla markaana ay tahay wadadii iyaga baasgareynaysay ama ku habboonayd. Dadka caqliga badani ma aha kuwo isku arkaa in ay cid walba ka caqli badan yihiin, hase ahaatee waa qaar isku arkaa qof normal ah oo caadi ah dadkiisana ku dhex jira. Ma aha qaar uu ku jiro ama ka muuqdo kibir iyo isla weyni. Dadka caqliga badan haddii ay arkaan qof guula gaadhay ama saaxiibkood ama qofku doonaba ha ahaadee, kuma yidhaahdaan kelmadaha inta badan dadku ay adeegsadaan ee ah nasiibkaaga fiicnaa. Hase ahaatee waxay ugu hambalyeeyaan iyagoo u arkaya inuu qofkan isagu dadaalkiisa ku gaadhay. Waxa aanay u qiraan wixii uu sameeyey qofkaasi ee dadaal ahaa. Calaamadda u dambaysa ama qodobka u dambeeya ee lagu yaqaano dadka caqliga badan ma aha kuwo sameeya arrimo ay u arkayaan in ay iska caadi yihiin maadaama ay sameynayaan dadka ku hareeraysan ee buy'ada ama bulshada ay ku dhex nool yihiin oo dhan. Haddii si kasta ay bulshada ay ku dhex dhaqan yihiin u sameynayaan ficilo aan iyaga cajabin, uma arkaan ama ma sameeyaan iyagoo isla cid walba way samaysay oo waa wax iska caadi ah. Hase ahaatee waxay ka qaataan go'aan ah inay u arkayaan dhaqan aan iyaga la fiicnayn, xataa haddii ay bulshada iyaga kula yaabayso inaanay waxyaabaha qaar samaynin. Xagga hoose igu soo qor inta calaamadood ee aad ka matasho dadka caqliga badan. Inta aynu barnaamij kale ku kulmaynana waa anigoo Nasra ah oo idinkaga tegaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.